marar badan waxaa dhaca in aynu shay ku dadaalno ku dhibtoonno wax badan oo aynu u rajaynay guushiisana aynu ka geysano haddana aynu ku guulaysan weyno aynuu hagaagi waayo mar walba aynu qorshayno aynu qaabayno aynu ku dhaqaaqno aynu wax ka mida ka qabanno oo haddana kala daato oo ka soo bilowdo bartii ugu horreysay ama ugu hooseysay ee aynu ka bilowno waynu fakarnaayo waynu isweydiinaa maxaa dhacay waxaan muxuu igu hagaagi la'ay waayo sabab kasta oo shaygaasi uu ku guulaysan lahaa ku hagaagi lahaa waxa weeyaan meel ku gaari lahaa ayaad la timi haddaba waxaa jira shay inaga maqan ama waxa aynu hilmaanno marar badan maaha mar walba markaynu waxaan qabanano shaygaas waxa weeyaan tala saarashada ilaahay in ilaahay subxaana wa tacaala waxaan isuu kaa toosiyo in ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaaga suu kaa beegbeego yacni adugu bani aadan ahaan dadaalkaaga yaraa waad la timi laakiin inaad ilaahay isku xidho aad maarata qofku au aamino au dhaho aniga dadaalkayga yiri wax badan oo ka mid a uu ka qayb qaadanaya laakiin inta badan inuu shaygana dhammaystirmo tala saarashada ilaahay bay ku imanaysaa haddaba ilaahay subxaana wa tacaala isagoo arrintan ka hadlaya ayaa wuxuu ihi wa allafa bayna quluubihim wuxuu ka hadlayay dadayowgii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaanu dadaalka ka geysan colaadda isu hayay ee waxa weeyaan isdagaalayay ee isu cuqdadaysnaa nebigu dadaal buu ka geystay wuu heshiisiiyey waxyaabihii ugu weynaa ee ugu badnaa ee uu qabtay ama ugu horreeyey markuu maka ka soo hijrooday ee madiina uu yimi waxaa ka mid ahaa walaalaysiintii muhaajiriin iyo ansaar inuu walaaleeyey dad walaalaha uu ka dhigay waxaa jira laba qabiilo oo awsi khasraj la odhan jiray oo muddooyin fara badan dagaalamayay nebigaa walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam islaamkaasay ku walaaloobeen oo maarata heshiis ku noqdeen haddaba ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay waallafa bayna quluubihim ilaahay baa intii kala tagsanayd qalbiyadooda isu dumay isu soo jeediyey miya waaya markaasaa ilahay wuxuu ka damaysinayaa low anfaqta maa fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim haddii aad bixin lahayd wax allaale iyo waxa dhulka korkiisa saaran qalbiyadooda ismaa soo dunteen haddii aanu ilaahay subxaana wa tacaala doonin haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku waafajin haddaanad ilaahay tala saaran bal fiirso marka waxaa laynagu xidhayaa qofkan yar ee addoonka ee bani aadamka ah waxaa lagu xidhayaa inuu wax kasta uu qabanayo ilaahay u tala saarto dadaalkaagu wax ka mida shaygaas inuu hagaaga uu ka geysanayaa laakiin waa hadduu ilaahay kuu fududeeyo albaabkaasaad xidhatay waxaad u xidhasaa albaabka inuu kuu noqdo badbaado inuu kuu noqdo oo dhibaata aanan kaaga iman oo qof waalan kaaga soo gelin oo mid cadowga kaaga soo gelin oo mid tuuga kaaga soo gelin laakiin haddii aad maanka geliso inuu dhammaantii wax tarayo inuu dhammaantii ammaan yahay in yacni wax allaale iyo wax laga qaban karaya albaabka yar aanay jirin mar haddaad albaabka xidhatay aad afka taagayso aad leedahay cidna uma baahnin haddaad saad samayso waxaa dhici kara ismacaashintaa yare aad ismacaashisay dadaalkaagii aad samaysay inuuba ilaahay subxaana wa tacaala adhaxda kaa jibiyo inuuba albaabkii ay dhacdaba awood ka tan badna inay timaado inuuba dhacdo in lagu ilowsiiyo inaad xidho sakatuuraad ku rogto oad furaaba ka saarto hal mar aad u baxtay suuliga u yara baxday biyo u baxday oo aad furtay kadibna aad celisay aad ilowday lagu ilowsiye ku talagal si lagu tusiyo awooddaradaada hadduu fiirso amaba isagoo xidhanba lasoo jibiyeyba si lagu tusiyo albaabkan yari inaanu dhammaantii ammaano ahayn dhammaantii inaanu badbaado ahayn ee wax ka mida uu yahay inta kalena ay tahay inaad ilaahay u dayso waxaan ku soo ururinaynaa shay kastoon qabanano oo dadaal aan ka geysanano oo karti aan ka geysanano oo dhaqdhaqaaq aan ka geysanano waa in aan ku darno talada ilaahay subxaana wa tacaala inaan u dayno ilahay inaan tala saarano yaa nin baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi awr booda wuxuu rasuulkii allow ma intan xidho miyaan xidhaa misaan iskaga tagaa hogaankii buu hayaa miyaan xidhaa neefkan misaan ka tagaa yacni dee hoggaankan baa ii haynaya miya mise intan xidhan aad la tala saartaa nebigu wuxuu ku uhi cuqulha wa tawakkal cala allah xidh neefkan xoolaha aad geelaad waddo markaa kadib ilaahay tala saara subxaana wa tacaala ma kala hadhaan waxaa la yidhaahdaa sababta la kaalay sidii inaanay tala saarashadu waxba ahayn allana tala saaro sidii sababtu inaanay waxba ahayn boo kale marka wax kastoo aan qabanano haddaan ilaahay inoo fudaydin ma hagaagayo mar walba oo ismacaashino oo aqoonteena yar la dhacno oo taladeena yar la dhacno oo fikirkeena yar la dhacno oo qorshaheena yar la dhacdan oo aynu iska dayno in ilaahay tala saarno oo aynu afka taagnana waa markastoo ilaahay adhaxda inaga jebiyo oo wax un keeno
wixii aan ku qorshaynay aqoonta talada fikirkii aan isbedanay inuu haddana wax ka xumaadano maaragtay u kala daato wanaagsane waa ilaahay salaam